بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا دمانتين مركز الجوكتان. وحان مانتا وأن ببحيا ودن كشتاق إمارات كعربتا وأن وعد الدورو هولا الحريرة أرمها عيدا مضى عيدا كبدا ومدو 10 سنة أي laga taageeraysa dawladda Soomaaliya Imaaraadka Carabta howlo la xiriira dhameystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo ISIS iyo arrimo la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo hore dalka uga socday iyadana dardalgelintooda arrimahaas horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno hawlo badan sidoo kale in laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha arrimahaas oo dhan ayaa weeyaa sababta hadda aan socdaalkayga aan qaadan doono muddo 4 bari ah waxaan rajayn doonaa inaanu la kulano dawladda madaxda dawladda Soomaaliya Imaaraadka Carabta hawshaas aan kala hadalno diiraha yiraahdo arintaas bay khusaysaa tigitaankaygu wax kale oo weheliya ma jiraan waxaan rabaa sidoo kale inaan idin sheego inaan magacaabay guddi magaalada Boosaasood guddigaas oo guddiga dib u soo celinta bilicda magaalada iyo dib u soo celinta hantida dawladda ee la degan yahay ama la haysto guddigaas wuxuu ka kooban yahay wasiir Cabdirashiid Maxamed Xirsi wasiirka wasaaradda kalluumaysiga oo gudoomiye wasiir Saciid Maxamed Raage oo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda oo xubin Maxamuud Faarax Beeldaaje wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xubin Cabdirasaaq Nuur Cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo badda isaguna xubin weeye wasiir Cabdisalaam Bashir Cabdisalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ana duqa magaalada Boosaaso oo xubin Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo gudoomiyaha gobolka Bari xubin General Asad Ismaan Cabdullaahi agaasimaha guud ee hay'adda PSF oo xubina Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo taliyaha ciidanka badda Puntland oo isaguna xubin iyo ugu dambeyn gaashaanle sare Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari guddigaas waxay u xilsaaran yihiin inay magaalada ka shaqeeyaan dib loo soo celiyo bilicdii qashinka wixii yaal magaalada laga aruuriyo jeedka la furo iyo hantida dawladda dib loo soo celiyo si magaaladan u noqoto magaalo istaahisha inay noqoto caasimadda ganacsiga ee Puntland magaalada waxaan ku qabanay shaqo tiro badan hore uga qabanay oo jidadka la socota ilaa 14 jid ayaanu ka sameeynay oo qaarkood ilaa 6 kilomitir ay yihiin waxaanu sameeynay solar lights-kii ama se nolosha ku shaqeeya cadceeda oo aanu islaahayn wax badan ka bedelaysaa bilicda magaalada waxa soo ayadoo la qabtay haddana waxaad moodaa wasaaradda inay wax badan shaqo ay dhiman yihiin waxaan rajaynaynaa guddigaas inay shaqada loogu talagalay si tahay u galaan si degdeg ah ugana soo baxaan waxaan kaloo markaan rabaa inaan ku tirtirsiiyo oo aan ku booriyo dadka reer Boosaasood inay soo dhaweeyaan arrinta iyada guddigana gacan buuxda ay siiyaan inay waajibaadkooda ay gutaan ugu dambeyn waxaan rabaa hadal iyo halkaan inaan ka jeediyo ku saabsan xariga boqor buur madow oo lagu xiray Somaliland waxay la tahay aniga runtii isimadu inay yihiin inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda inaysan sax ahayn in nin ismuhu meel tagay dalkiisa kamida maxaad u tagtay ismadu anaga dhankayaga xuduud mara meesha doonaan bay tagi karaan meesha doonaan bayna nabadeynta dalka iyo isu dhawaanshaha bulshada ay u aadi karaan marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqor buur madow xarigaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisa meel kamida hadda dib noo yimaadana oo ku soo dhaweynayna horena ugu soo dhaweynay cid kasta oo Soomaali oo wanaag wadana Puntland way soo dhaweynaysaa ama ha noqoto wanaag nabadeed wanaag ganacsi iyo wanaag isu socod bulsho intaba waanu soo dhaweynaynaa hadii la yiraahdo waan ka xunnahay xarigiisa waxaanana rajaynaynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo ninka odayga
aad iyo aad baad umahadsantihiin soo dhawaada madaxweyne wuxuu sheegtay magacaygu waa xasan haykel radio daljir imaaraadka inaad u socotid maalmahana hadalhayn baa jirtay khilaafkii imaaraadka dowladda federaalka soomaaliya wada hadalka kula jirta puntland xiisadba arrintaas ka dhalatay iyo ciidankii qorshahan ku jira arrimahaas طبعا wixii xal iga weydiiyo anigu saan hore u sheegay wax dhib ah anaga dowladda iyo faraq naga dhaxeeya ma jiraan wax wanaag ahayn oo naga dhaxeeyana ma jiraan waan rajaynaynaa dowladayadii dhexe iyo dowladda Sacuudiga Imaaraadka Carabta oo wax badan naga dhaxeeyaan oo arrimo dhaqaale iyo xiriir ganacsi iyo dhan walba aan isaga xiranahay inay isu soo dhawaadaan wixii khilaaf oo jira oo yar hadii jiraan la dhameeyo ayaan rajaynaynaa wixii anaga arrintaas igaga aadan Cabdullaahi ahaana oo ka qayb qaadanaya waana galaya hadii la yiraahdo madaxweyne waa shaam halkeeda arrintan imaaraadka iyo shaqayteena ma moodaa in dhinaca wacyigelinta bulshada ee arrintaas ku wajahan aad xaggeena ka gaabis ka noqoteen oo bulshada badan aan fahamkaysan heshiiska la gasheen dowladda imaaraadka dabcan waa dhici kartaa inuu jiro gaabis dhanka miidiyaha laakiin wixii kale hadda arrintaas naga aadanna dardargelinteeda waa aan suubin doonaa hadii la yiraahdo laakiin dadku waa wacyi geeshan yihiin waxa aan kala shaqeynaa imaaraad waa un difaaca dalka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha intaas waxay rabtaa qof kasta oo reer Puntland waa uu fahmi karaa waa uu fahamsan yahay marka wixii kale oo dheeraad loo baahan yahay ku darideeda waa laga maarmaan waana sameeynaa insha Allah hal su'aal arrintii kaabayaasha dhaqaalaha dekada oo kale waa maandhow waqti ka hadashay oo asal qadiimiga laftooda ay dhawaan la marka arrintii dekada ma ku jirta goorma sabab bilaabay hawshii mashruucaasi dad badan waqti badan baad ka soo wareegtay heshiiska xilligii la saxay dekada lagu wareejiyay wax badan oo ka soo wareegay ma jiraan hawshaas haddana way socotaa hawsheedii waxa hadda gabagaba maraya tenderkii cidii ku guuleysan lahayd shirkadihii waqti badan bay qaadataa shirkadaha in la eego in ay dhaqaale ahaan sax yihiin oo ay sound yihiin dhanka financialka dhanka technicalka inay awood u leeyihiin inay sameeyaan dekada ay khibrad leeyihiin waxaas oo process bay qaadataa lagu kala reebay shirkadaha gabagaba arrintaasi maraysa ugu dambeyn waxaan u marinayaa waxa la leeyahay waxa soo har laba shirkadood waxaan rajaynaynaa marka tii ku guuleysatana dhawaan lagu dhawaaqi doono ka bacdina ay bilaaban doonto shaqadii dekada diiraha.